ورياه مش قالها هلكن شوغا باتay beerta haye ee gudinta waasta maxaad markaa gudinta u soo qaaday ee waxaan u soo qaatay inaan meesha ku oodo dayactir badan ba gelisay Soomaa waxaan soo oodaa ooday waxaan soo oodaa aniga ooday haye ee waaka cid ma idin dhibtaa markaa cid wax ma idin dhibtaa cid maxay dadkan imanaya dee meesha tuban dadka meesha tuban ma waxba noo bay dhib ilaahay dartii baa isaga ooday ilaahay dartii baan u ooday wallahi inuu wanaagsan baad bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaashana daawanaya marka hore waa salaamantihiin marka labaad waxaan joognaa dooxadii weynayd ee buska dooniwaal ee magaalada Burco waxaan leeyahay waxay nala jooga gudoomiyihii dooxadan Jeynaani Maxamed Xaaji Axmed marka waxa jirta maanta waxa lagu sameeyay dooxadii waxaan idinka sidnaa burshaarooyin fara badan meel dalxiis ah laga dhigay horta marka ugu horeysa meel dalxiis ah awal horeba ahayd laakiin waxa loo bedelay systemkeedii iyo bal waxyaalaha ku kordhay ayaanu idin la wadaagi doonaa marka waxaan ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa Jeynaani baan ku soo dhaweynayaa ku soo dhawo gudoomiye alxamdulillah salaatu takilaystayaashii iyo kooxdii Burco oodaheeda wadataa iyo aad baad u mahadsantihiin waanu soo dhaweynaynaa ilaahay baa mahad leh goobtan iyo dooxadan waa nimco maasha Allah kolley tacab iyo dadaal badanina wuu jiraayo cawska laftiisa xabba laakiinse tacab badan iyo siirayn iyo yani dhulka kale waad aragtaan waa abaar weeyaan laakiin halkan sanad walba waanu siid baanu gelinaayo waanu siiraynaa cawsku marka uu dhasho wuu guuraa marka kolley wax kasta oo adduunkan korkiisa ka jira waxay u baahan yihiin nidaam iyo qaabayn iyo qorshayn dhibaatooyin badan baa dhacay fasahaad badan macaasi mashaakil dagaal maandooriye dhibaatooyin badan baa meesha lala yimi fusuq baa dad badan sameeyeen way ka fursan weyday marka inaanu nidaam iyo maamul u samayno dadkiina wixii loo qurxiyo oo loo hagaajiyo oo qaab iyo goob dalxiis oo qurux leh oo habboon oo caalami ah oo dadku ay ku ildoogsadaan oo runtii ay ma garanaysaa muudka iyo yani maankaba ay ku bedelaan inaanu ka samayno sida fardihii baanu keennay oo imika jooga marka nidaam iyo qorshana waanu u samaynay sidoo kale waxaanu shaqaalaa jooga boolis baa ilaalinaya oo nidaamkii iyo inaan meeshii la isku leeynin inaan maandooriye lala iman inaan fawdo kale inaan macaasi ka dhicin culimada ayaa runtii taa nagu boorisay gobolka Togdheer oo aad iyo aad arintaa uga hadashay marka waxaanu qorshaynay inaanu qofkii $1 oo adigu dadka nidaamka inoo ilaalinaya ay ku shaqeeyaan oo ay hawsha ku qabtaan inaanu samayno marka waxaanu aaminsanahay marka la eego miisaan ahaan inaanay waxba ahayn dadkana ku cuslayn goobtuna dadku meelo badan bay u dalxiis tagaan oo aadaane waa meel qalbiga furaysa oo niyadda soo jeedinaysa oo runtii qofku mood wanaagsan iyo refreshment iyo less stress oo ka qaadayo marka idinka laftiinana aad baan idinku mahadnaqaynaa fariintayada inaad bulshadana aad gaarsiisaan idinkuna aad qurxinteeda iyo qaabaynteeda aad ku ladhaan oo aad hagaajisaan baan runtii soo jeedin lahaa aad baad u mahadsantihiin waa sax fardihii waa la keenayaa baa quruxdeedana waa aragtaa horta wax kastoo aynu qabanayno iyo wax kastoo aynu dhigayno halka meel la imayn waad arkaya wara runtiisa wuxuu yiri gudoomiyuhu habeen dhow waxaan arkay 11 habeenimo baabuur soo galayso halka dhiganaysa baabuurtaas wax kale ma wada fisq bay wadaa haddii imika askar la keeno nidaam loo sameeyay waa si wanaagsan haloo hogaansamaadaan leen nidaamkii meesha la ilaaliyo laakiin inay iska noqoto meel taantaa rugana laga wacan waa si wacan weeyaan nidaamka anaga laftarkeegu fikirkan ula yimi gudoomiyuhu soo dhaweynaa dadka bulshada kala dhaxan leena soo dhaweeyay meesha ma kala ilaaliyo alxamdulillaah rabbil caalamiin horta reer Burco waxaan leeyahay waa wax dadka dheer tihiin oo maaragtay maanta aan cidi
idin kala sineen gobolada Soomaaliland kala ma jirto gobol barxadda inta leeg ee saano cagaaran ee waxaana doog iyo caws iyo decoration ay leedahay marka waxaan leeyahay waana la idin soo qurxinaya oo fardihii iyo qalabkii iyo adduunkii wixii iyagoo dhameystiran halkan in isku ognahay ka faa'iideysta baan leeyahay warkii intaas inuu idil yahay dhammaan fariinteeni waxaanu leenahay halo hogaansamo shuruucda laga soo saaray wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh